هاي مقاشا شيخو ها sheekhow su'aal baan qabaa su-aasheedu waxay tahay xaajada aan qabo anuu ninkii shanaad baan 4 nin baa iga soo horeysan waa gartay ninkii ugu horeeyey isagoo maalin iska hurda ayay dhuunta midi kaga qabatay ay waa tiri gartay fur amba dalqadaydiisii waa gartay marka ninkii wuxuu yiri okay waan ku furay waa gartay cunugna waa u dhashay waa gartay markii uu xaggii ku furay gurigii waa ka cararay waa ka baxsay magaaladii waa gartay ninkii labaad isagoo hurdabay dhuunta midi kaga qabatay waa gartay fur amba shahaado waa gartay kiina waan ku furu dhahay waa gartay iguma filna xabada saddexdaba fur bay ku tiri waa gartay saddexdii uu dhac ka siiyey waa gartay kii waxaas ayaa kaaga sheekayay adig nimanka dhan ma aragtay nimankii ma la kulantay anigu ninkii shanaad baan sooniga kule maaha maya mala kulanto kuwaas oo midada shahaadka la marsay waan kuu soo wadaa waa gartay kii ugu hore cunug buu dhashay kii labaad cunug buu dhashay kii saddexaadna sidoo kale isagoo hurday dhuunta midi kaga qabatay waa gartay ay ku tiri fur amba shahaado waa gartay waan ku furu dhahay waa gartay iguma filne saddexdaba sii saddexdii buu dhac ka siiyey waa gartay kii afraad sidoo kale su-aashaydu waxay tahay adigu midid wiil lagu saarin waan kuu soo waday dhegeyso waa gartay kii su-aasheedu ugu horeysa waxay tahay mididan dhuunta lagaga qaban ninka ma ka furmaysa markuu kule waan furay mise kama furay waa su-aasha koobaad kow su-aasha labaad waxay tahay cunugii ugu horeeyey ninkii ugu hore cunug baa u dhashay kii labaad cunug baa u dhashay kii saddexaad cunug iyo kii afraad intaasoo caruura ma ninkii ugu horeeyey haddayna ka furmayn ma ninkii ugu horeeyaa le mise male waxaan saa ku leh ninkii labaad baa anii soo wacay markaasuu igu dheh war xaajada igama furno cabsi baan ku furay ee cunugaa dhashay anaa lu igu dhahay waa gartay su-aasheedu waxay tahay ma run buu sheegayaa ma ninkaaba iskale cunuga mise cunugaygan anaa iskale mise nin walba cunugiisu leeyahay mise maxay ahayd de kii ugu horeeya carruurtoo dhan wada leh nin kasta cunugiisu iska leeyahay waan gartay sababtoo ah dacwada waxaan gudbisa karo ninka oo xaqa ka maqan yahay hadduu ka aamusay ilaa ninka hadda waa baxyey markii midida laga saaray ma dhihin gabadhii anaa qabo waa ku qanaciyey furiinka maxaa yeeley inkastoo furiinka mukrha uu yahay oo la qasbay laakiin waxaa qasabkaas sheega karo ninkii saaxiib xadadka ahaa marka hadday jirin cid ay sheegato oo ku qanacay inuu furiinkaas dhacay ama uu asaga ay ka ahayd islaantan midida hadda ku saartay haddaad waa qaba aad tiraahidna berri haddana midi kale kuu taalle kii hore qirtay oo furiinka hore inta badan waxay u badan tahay inay qirteen furiinkooda hore mar haddii furiinkooda hore qirteen ee ciddadan ay ka baxday ilaa iyo cunug kale ka dhashay lagama yeelayo inuu yidhaaho aniga igama furno waan gartay waa dhamaatay insha allah adigana midida iska ilaali maydaan waaba baqayaaba hadda way igu soo socotaaba cunug bay ii dhashay waaba ka baqayaaba baarak allah fik ilaahay ku xafido dhinaca kale halow halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu sheekhow su-aal yaraan qabaa ugu dambeysa kas ma ka hadlin aniga waxaan ka hadla kasku niyo u baahan tahay iska dhaaf niyada cid ma ogid adig laakiin waxaan ka hadlayaa markaad taabanaysid gacanta qofaa marta dukaanaad joogtaa maalan lacagaa waxa u dhiibaysaa qofka adoo iska ilaalinayo ku taabtay marna adaaba taabatabo taasaan ka wadaa haddii adiga aad taabatid weysada waa kaa jabaya cinda madhab shaafici khaasatan haddaa foodi soo masaxday oo madhabka shaaficiga waxaan usoo weyse qaadat laakiin hadday idinku taabato laamiska ayay ka jabtaa malmuuska ma ka jabto ma kaa jabaysa markaas insha allah marka anoo wadada soo socda haddaan qof gacanta isku dhufana ka war hadda waa ku sheeg hadda iid ku taabato markaas idaa ku taabato adima taaban adigo hadda qof weys oo dhowranta ad waa is ilaalinaysa soo maha
wixii laakiin iyada kugu soo dhacdo dhib male markaas weysada waa ku dhoorantahay insha allah salaada marka la xiranayo oo waajibka amba sunnada نويت أصلي فرض إن أنا هميا واجبة مثلا إنما الأعمال بالنيات نيد أن تحت الله أكبر وعليك أنا إنما الأعمال بالنيات النية محلها القلب إن الله أكبر تلا صلاة وحلوه قال سيدة دبا تكبيرة الإحرام صلاة مركي تعريفها على أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم الله جماعة وأفعال غفر الله أكبر تاسع غفرة مركي وحي كلا أشياء يسوى وح خارج الصلاة وخارج الصلاة وصلاة كهرة تري ان وسواسي كو كيني كرتا ان صلاه ما جبيس هذا اساس ما جبيس صلاه الله اكبر وحي وكوري waxa sheegaysa salaad gudeeda kuma hadlin marka ana salaad ku jiro hadan masaajidka nin wadaad ku bacdina tusalahan ee saliga nabiga uu ku dhawaa wadaadkaas ana salaad ku jiro nabiga ma ku salli karaa sallallahu alayhi wasallam maya mar salaad ninka markuu salaad ku jiro nabiga عليه الصلاة والسلام هو السلام جل السلام عليكم أنا صلاة كجرنا وعليكم السلام وقف كدي جرني لكن مركز دم ولا نسقي وقوموا لله قانتين توحوا بقاشعين وإلهي ويري مركز هذا من ضمن كل بابي اسمه كاس محمد المشغول لا يشغل هذا صلاة مش صلاتكم مشغول صنتاي ما تكليف كاسكم صارنا هذه ما شاء الله وعليكم السلام بارك الله فيك أخي ننعك الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ شبلي، السلام عليكم. أصولي شيخ الله كو بركيه waxaan ku weydiin rabaa su'aal macnaha sheekh waxaan niman naag guursaday haduu guursadana markuu guursada ilmay u dhashay ka bacdi ilaahay xukunkii waa kala tageen كبعدي حد ذلك يروي هي كويس معناها وحي اسكوسين معناها دتك ودد بلا ادنا شيء ده ما كات كادي وحد ذلك يروي هي وحد ذلك معناها وحد ذلك ويسفر صارين هدا يسفر صارين كبعدي ان دينته الاسلام كاي معناها انا شرع وحو قبو معناها اي هدانا كسو نقدان اي اسفهمين markaas telefoonka kala soco tv ka islaaf ka gaab haye waxa waaye marka hore way isqabeen marka hadda ma isku xirmi karaan macnaha haddana shaydama ka aaday waa hadarku roon yahay واسكو معناها واحد يركو رين هي وا حرانه كدعده اي شيخ الله كبركيه هي واتي توبه كينها قفك توبه تو كينو نعم زاني لا ينكح زاني مركو الهي قران كايد نو شيغاي معناها waxa waaye qofkii tooba keeno la ogol yahay labada qof hadii tooba keena ilaahay toobadu aqbala isku noqon karaan xaraanta inay ilaahay ugu tooba keenan waa is guursan karaan insha Allah وبركيه ما شاء الله هي ياك لالو fiisaha Mareykanka ku qaadanayo waxay dhahaa waxa dhaho waxay maraan checking board ee dhaxlahay maraan oo qofka dharka laga dhigayaa macnaha taa diintu waxay ka qabtaa dumar iyo ragba طيب wixii daruuri dharka waa loo dhigi karaa fiir cawrada in la asura waajib ah qofka markii dhakhtar tago ama wax daruuro ay jiraan waa laga dhigaa marka haddii daruuro u aragto qofka oo arrintaas u aragto daruuro inay tahay oo laga yaabo in cudur laga baarayo oo cudurkaas inuu gudbiyo laga yaabo wax dhib leh mala qofka ha ku dadaalo kaliya gabadha inay daaweyso raggana ragga inay daaweeyaan taas lagu dadaalo insha Allah dhinaca kale halo قد كو جرى قفكاس الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شقو قال الله سؤال روينا كويو wiil ayaa gabar wuxuu dhahay waxaa rabaa inaan isguursano oo ismehersano gabadhan waxay tiri maya aniga meher marabi laakiin balan aan kaa qaaday in isguursaneyno
okay adiga gabadhi way dhaatay marka wiilku gabadhi way soo baxday adiga wadamada qurbay soo aaday wiilkina Soomaaliya joogo wax badan kadibna wiilkii way la hadashay way inay aado asagana muu imaan karo marka way wacday waxay leedahay walaalo macaan waxa igu tashanin iga tasho mawaakaas anam kugu tanahay خلاص هذا كنت على هذا قوان كاسجاري بس خلاص يدي مسك أروستي مرتين دارتس مسكوم أقف مسك فارجودة مسقف هو شيء محيد وكدعي والله ما يكون أرد ها وين أرد أما كفارجودة لك ربع دي أرد لكن بلانك وكبيح كرتان بلانك دب ملها وفكر دي وظروف كويسة وش يكتر إن كان يتري بلانك ولا لو كوم وكبحي لكن ما دام أردتي كفارة ولا قربها تمام مسكينة قودني سام سدح بريسوميس إن شاء الله. وهذا كتاب قعدت قشطان كده عرفتني. كتاب توكيد له أتكلم له مصحف كلا صارت لكن والله بالله تلا أتلاهيد أو أرتس أقول أرتد وقافة كفارة ولا قربها. معايا وحقبت كفارة وحبلنا قادنا وحقبت وحسمين دو وحيا سميسي وحويناك سنة سميسي دقورك حلال وحدا أكون بابي سماها واحد دين بماها لكن كارت أرتس كفارة ولا قربها من النبي عليه الصلاة والسلام يقول وحنا نكسنا كدارنا كذب وحول وحنا عن سمينا كبعنا كفار بحنا كفار صلى الله عليه قف في الإلهي وهداني يربى نبغى سموك هل بالأياسوم وحريرته هل كبل ما وقفين وصوم وحريرته مقول كلام هل كبل لازم إنه ما هدو أرجع حريرته قدر هدو هل بالله لها مركز برشوا أكو لها لكن هدو حريرته قدري إنه حريري هو هل كبل أصومه halka bil isku xigtino soomo ma hal bil xariirtu sayra ma haduu dhil hal bil sooma maalin weekib hal maalin oo ka soomi lahaa sidii bisha u dhameeyo laakiin haduu yir xariirtu waa inuu dhameeya kulligeed oo xariiriya jazakallahu khayr asaas ku adkeey ilaahay inuu ku adkeeyay mar naam